السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري ودا دمانتين ومركل هلال تريدين halkan insha Allah waxaan ku duubi doonaa cashar aad muhiim u ah kulli ardayda akademiyada ay la qaataan casharkaas laakiin aan doonayo bal inaan casharkaas si faahfaahsan u sii dhaahdo ana uga dalnay inuu arday kasta casharkaas sida ugu macquulsan iyo sida ugu wanaagsan ugu dhaqmo waxaan insha Allah halkeedu kula wadaagi doonaa wax ku saabsan imbalance ama imbalance gap imbalance horeynu soo qaadanay oo kulli conceptkeedaas ku noqon maayo laakiin ardayda kale insha Allah inaan sharxo imbalance waxa weeyaan farqiga u dhaxeeya saddex kandal farqiga u dhaxeeya oo ah kandalka koowaad lowgiisa kandalka koowaad lowgu leeyahay kandalka saddexaadna haygu leeyahay labada kandal dhexdooda inta u dhaxaysaba imbalance la yiraahdaa lowga iyo hayga inta u dhaxaysaba imbalance la yiraahdaa marka waxaan doonayaa muhiimadda iyo faa'iidada uu leeyahay tradingka ama inuu setup-kaaga qurux bato ama win ratio setup-kaaga inuu fiicnaado ayaan isku dayin san hore soo qaadanay waxaan sheegay suuqu hadduu laba move yeesho suuqu markaanu trade garaynayno waxaan ku trade garaynayno the last two moves suuqu sameeyo ma waxaan nidhi waa inuu labada move ka helnaa labadaba imbalance ama waa inaynu midkood imbalance ka helnaa soma marka insha Allah bismillah kareem waxaan halkan idinku sharx doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay imbalance ama inaad suuqa xooga saartid imbalance ma leeyahay mise male inaad yani waqtigaaga badan inaad geliso ayaan insha Allah aan ku horeyn doono marka waxaan ka horeyn doonaa insha Allah lacagtan goldiga oo dila wadaagay aan malinayaa weekii hore saad u jeedaan lacagtan gold waxay samaysay wax aad u wanaagsan wax aad u muhiim ah runtii saad u jeedaan gold waxay samaysay maxay halkan inay ka samaysay maxay container barta ka aborto ma oo lowga ay jibisay inay barta ka arkayna soo mahin maadaama kan uu day recent high ama last high ugu dambeeyay waxa kan marka sidaas dhacday maadaama aan move labada haysan laakiin aan haysto kan dan Fibonacci kana saartay marka waxaan eegaynaa imbalance ma leeyahay mise malaha that is the big question aynu maanta haysano in baahanahay inaynu si fiican u clarify karayno okay markaad eegtid lacagtan gold markaad eegto kan waa candle-kii koowaad soo ma kanna waa candle-kii labaad soo ma kanna waa candle-kii saddexaad soo ma okay ma soo gaadhin may soo ma halka difference bahaysan kan kale sorry kan kalena isna candle-kii koowaad kii labaad kii saddexaad isna halkan imbalance kala yaala halka kalesna imbalance kala yaala soo ma halkan kale imbalance kala yaala soo ma marka halka marka imbalance iyada soo dhan ka helay halka dad u qaado imbalance wad ka helay soo ma inta marka helay waxaan soo qaatay institutional candle-kii ka raadsaday in lower time frame kan u dadegay markii aan ka waayay halkaasaan ka soo helooday halkaasaan saartay saasii marka lacagteeda aan ku qabsaday okay waa markaan ka hadlayna maxay imbalance muhiimadu leeyahay okay halkaasaan marka ka soo helay saasuu noogu dhaqaaqay trade-kiidaas okay markaynu ka hadlayno imbalance la'aan suuqu inuu bilaa imbalance yahayba marka tusaale kale weekend trade bay ku soo baxay USD card buu ahaa saarjinaha absolutely USD card buu ahaa trade-kan USD waan qaadan lahaa run ahaantii laakiinse hal sabab kaliya ayaan u qaadan waayay trade-ka okay haddaad eegto USD card waxay samaysay wixii uu gold sameeyay hadda welibana uu ka sii wanaagsan isagoo gold okay eeg halkan wuxuu sameeyay lacagtan maadaama ay up movement hayd last lowgii lacagta waa la jibiyay soo ma halkan coach baa ka dhacay soo maaha okay last two moves bay samaysay soo ma lacagta laba move bay leedahay halkan complete moves ah ay leedahay soo ma lacagtaas markii aan sidaa u arkay waxaan arkay in halka trade fiican yahay laakiinse hal shardi u man ka waay oo ah shardiga ugu muhiimsan strategiyada smart money oo ah maxay imbalance mala move kan soo ma okay kanna email soo ma kan la kiisu koobaad soo ma halka dhan email soo ma okay inta markaan ka helay hada kulli dad sharxaad ma baahna qof kasta indhiisa ku arkay hada in la jibiyo maxay order block hadda eeg wan haysanaa coach ku haysan laakiin maxaa dhacay haddana maxay haddana in la jibiyo
markaynu ka hadlayno imbalance waxa weeyaan yani waxyaalaha ugu muhiimsan boqolkiiba boqol odhan karo waxyaalaha ugu muhiimsan weeyaan okay haddaynu degno xataa waxaan kasoo helay order block candle-keygana waxa weeyaan lower time frame aan kasoo helay then halkan kolley sida qurux badan maadaama uuna hayn in analysis fiican lagu sameeyo bay inuusan hayn badan laakiin ardayguna horta ka feejignaado imbalancegiisa inuu xoogga saaro ayaa loo baahan yahay markasta inuu xoogga saaro ayaa loo baahan yahay haddaad eegto dhammaan wixii trade aan qaatay kolley kula wadaagay maxaa groupka soma arday kasta bal ku noqdo imbalance faa'iidooyinku leeyahay aad xoogga hawsa imbalance haddaanu trade-kaagu lahayn there is no trade lacagtaas wax trade-kaaga furan ma jiro faraad ka qaad marka intaan kusoo gabagabeynayno dheeraadeen ma jecli asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh